maamulka gobolka Togdheer iyo wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ayaa si wadajir ah uga qayb galay munaasabad ballaaran oo ay ku qalin jalinayeen in ka badan 400 arday oo badan hablo kuwaas oo bartay xirfadaha barashada cilmiga kombiyuutarka ama ICT-ga isla markaana wax ku bartay dugsiga Sidka College oo kamid ah dugsiyadii ugu horeeyay ee gaarka loo leeyahay ee taabageliya waxbarashada gobolkan kana mid ah tirarkoodu dhaxaadka oo ah waxbarashada gudoomiye ku-xigeenka gobolka Togdheer Maxamed Maxamuud Yuusuf Bahl iyo gudoomiye ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada Xasan Jaamac ayaa si wadajir ah u hambalyeeyay dufcadan iyagoona tilmaamay intii xukuumaddan uu hogaaminaya madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Silaayo talada dalka la wareegtay kor u kacday tayadii waxbarashadu waxaana ay mas'uuliyiintani ka codsadeen ardaydan in maalinta qaran ee 18 May ay si mug leh uga dhex muuqdaan ardaydu farxad gelinaysaa inta oo kamid ah bulshada Togdheer oo runtii loola kala maanta ay ka qalin jabiyeen aqoon sare ee dugsiga Sidka College aadiya bardhiganayna bareene munaasabada foorta lagu soo haysaa ee 18 May awgeed waxaan rajaynayaa inta oo Togdheer inay ka qayb qaadan doonaan weynaynta maalinta maamulaha dugsiga Sidka College Cabdiqaadir Maxamed Cabdilaahi ayaa ka warbixiyay maraaxilkii kala duwanaa ee dugsigan iyo munaasabadan ba qalinjibinta ardayda marka ka qalinjibinaysa College Sidka oo tirada gaarayso 400 arday oo dhameystay marka cilmiga IT Sidka sala socotaan gobolka ayuu ku yahay xagga waxbarashada gudoomiyaha jaamacadda Golis Burco Cabdixakiin Maxamed Cabdilaahi odaya Bokor Aadan arday iyo xubno kale oo halkan ka hadlaya dhamaantood waxay si wadajir uga dhawaajiyeen muhiimadda ay leedahay waxbarashadu iyagoona ardayda ugu baaqay inay halkaasi ka sii wadaan dadaalkooda ugu dambeyntii waxa halkaasi shahaado sharafyo lagu gudoonsiiyay maamulka iyo macallimiinta dugsigan oo lagu siiyay dadaalka iyo juhdiga ay galiyeen ardayda geestoodana waxa halkaasi shahaado sharafyadii lagu gudoonsiiyay ardaydii ka qalin jaliyay dugsigan Sidka College Habsa Farax Cabdilaahi TV-ga qaranka Somaliland Burco